marka ugu horeysa Soomaaliya sidii caadadeennu ahay Allah mahadle Allahii Soomaali naga dhigay Allahii Muslim naga dhigay Allahaasan mahadinaa marka xigana waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan rabaa maanta inaan Soomaali balbaro waxay tahay Soomaali horta intaan Soomaali la qaybin 1848 waqtiga qoran ee Berlin la fadhiistay kahor Soomaali maxay ahayd su'aashaas is weydiin la in la helo markaas Soomaali waxay tahayna la heli karaa Soomaali waxay tahayna markaas la heli karaa waa su'aasha is weydiin kale haddaba markaanu taariikhda Soomaalida anagu baadhnay magaalada Saylac la yiraahdo meel ka da'weyn Soomaali waan weyn waxana ku cadeynaya waxa ku yaala masaajid qiblatayna wa 1400 oo sano maanta in laga joogo masaajidkii la dhisay ومركي النبي محمد عليه الصلاة والسلام لقوا واجبين إنه مكة أتكلم أتكلم يجور السلام قبل هذا مركا هذا وتحسي واحد واحد دينا ساعة أنت تاريخ ده اللي قرانا ده وتاريخ ده مسلم كون inay tahay meesha ugu da'weyn Soomaali magaalada Saylac haddaba anagu maanta Soomaali waxaan u cadeynaynaa inaanu ahayn dad dastuur leh dad xeer leh dad mataqaanaa u nool sida nolosha bini'aadanka u nool oo sharci lahaa oo qawaaniin lahaa wax adduunyada ka maqnaa aanu jirin adduunyadana ku xidhan from India ilaa isu saar maxay haydeen Europe de magaalada Saylac ninkii garanayana waa waxa la yiraahdo checkpoint وماشي مركب كسته أو كيما يوروب وسوي استاجيو مركب كسته أو جينا كيما دانا وسوي استاجيو مركز ساسي بس أنت راركون نقطة إسلام ككور حتى مركز هذا بيانا تاريخ فكوسي قريني وحنو عند دت شرعي له dad wax yaqaansan inuu sheegayba dad dastuur leh dad u nool sida dadka u nool yihiin bini'aadanka ee wadankan aan maanta aan joogo ee Ingiriiska u nool yahay u nool baan ahay inta taariikhda ku qoranay ilaan taariikhdu way isqortaa waxa taariikhdeedaasi bedelantay 1800 iyo 48 waqtiga Afrika loo heshiiyay waqtiga dastuurka loo qortay sida loo dhaqmayo marka haddaba ilaa iyo maanta ilaan taariikhdu way isqortaa dastuurkaas socda waxana ku cadeynaya inuu dastuurkaasi socdo ilaa iyo maanta laba cisho ka hor waxaan dhageystay maanta bishu waa 13 August bishii 8 2020 laba cisho ka hor ayaa waxaan dhageystay
بروفيسور دلحة وتستورك والله وسو قري قلمدا ويري waxaan idin wax baarlamaan loo horkeena maaha oo ma taqaanaa laga hadlo maaha inta dadka caqliga la og yihiin waa runtii wax laga hadla maaha wax baarlamaanka loo horkeena maaha laakiin waxa shame ninka mikrofoonka fadhiyay بروفيسور دلحة ku celiyay meeshii ay yiri maxaa lagu bedelaa weydii ingiriiska wax lagu bedelay ninka ingiriiska garanay wax lagu bedeli lahayo ninkaas oo jawaabtaadu waxay tahay ninka ingiriiska weydii laakiin anagu dadka caqliga leh muslimka hadaan nahay intaan ognahay wax lagu bedelo ma naqaan afkaan muqabsana kulli baarlamaanka cidii ku keensatay cidii ku soo dooratay cidaas dhib baan leeyahay anu wax ka sheegi maayo anu dadku waxba kama sheegeen intaan ognahay Soomaaliya baarlamaanka dad mufakkiriin la keenaa sida Professor Dalxo kale wax ka dacayaan oo wax og ma sida geela loo maalo la keeno ninkaas xabad ugu wanaagsan in loo dhiibo askari laga dhigo baarlamaanka waxa la keenaa un dad maskaxdooda maalaya maaha qabiil hadduu yimaado waddanka dumaya because waxaad ka garataa dadka maskaxda maala dhulka ay ka shaqeyso ninka maanta taayada isticmaalaya ninka ingiriis la yiraahdo la joogo de maskaxdu maala kanu ka shaqeysiya marka dhul fiican buu ku nool yahay dad fiican buu nool yahay dadkan maskaxda maalina de wadamada Afrika la ogyahay ee ummadoodii kala daadsan tahay وانا برلمانكي ugu sareeyay maanta waxa dastuurka kula qodobka aan ka doodno war qodobka laaba wax laga sheekeeyay ma qodobo badan oo kalena way ku jiraan de barlamaankuna haduuna mufakkir lahayn runta Soomaaliya la isku sheegay de dastuurka inagu socda ilaa 1848 baa inagu socon doona isagayna baabiin doona دي كلام يا تسوي بدل لا Soomaaliya ka fikirto ilaan ilaaha abuurtay bila aadan kuma abuuran marka Soomaaliya waa midinii taala dadka caqliga leh saad uga hadli lahaydeen adduunyada runta la isku sheegay waan salaamayaa waxa runta Soomaaliya isgaarsiiya ilaahay Soomaaliya isku hadeeyo waan salaamayaa Soomaaliya